بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dadka meel walba joogtiin caafimaad waara Ilaahay nooga barya maanta waxaan rabaa inaan wax yar idin soo xasuusiyo maadaama dhowr mowduuc caadi ah oo psychology ku saabsan dhowr mar ka soo hadlay maanta waxaan rabaa mar kale inaan dib u xasuusin kale ku sameeyo xanuunada nafsiga mar walba waxaa diidaya in la yareysto ama loo arko xanuun iska caadi ah ama xanuuno oo problem weyn lahayn noocyada ku yimaadaan aad u badan yihiin marka xanuunada nafsiga ha ahaado wax kasto aadan arkeen oo gudaha ka dareemaysid ama aqli ahaan u dareemaysid yani nafsi ahaan waxa laga yaabaa sida hore isku la soconabo ina u dareentid niyad jab walwal murugo kalsoonidii hoos u yaraato wax qabsigaaga hoos u dhaco xanaaqaaga bato jiifkaaga eber noqdo qarawgaagiyo bato la tacaamulka dadkii ka soo xarootid murtamay dib uga soo xarootid yani inta sheega ka badan aqli ahaan waxa laga yaabaa in ardayda badan xasuustii ay ka dhunto wixii ay xifdiyaan wixii ay meel dhigaan dadka kale caadiga xataa shaqooyinka ay qaban jireen inay kala xasuusan waayaan wax markii la sharaxayo inay focus ka saari waayaan iyada naftirkeeda labadaas waxay noqonaysaa xanuunada nafsiga laakiin maadaama ay dadka inta badan xanuunada nafsiga hal mar soo wajihin ee tartiib u soo galaan noloshooda waxa laga yaabaa in la yareysto loo arko wax iska caadi ah marka saac baar u joogo waxa jeclaa in dadkayga idin soo xasuusiyo inaysan ahayn xanuun caadi ah oo noloshaada wax badan kula harayo wuxuu u baahan yahay taxadar badan wuxuu u baahan yahay ogaansho badan wuxuu u baahan yahay raadin badan inaad raadisid waxaan maxaa waaye oo ku hayo wixii markaa raadsid naftirkeeda su'aasha waxay tahay maxaa ka heli karaa saa uga dhaxbaxo ani hadda dad badan qaba oo yimaado dadkayga naftirkooda waxa laga yaabaa labada bar ugu horeyso markay caafimaadaan inaa waayo yani qofka waayo iyo qofka ila socdo mar walba waxa jeclaa qofka ila socdo ma ahan culeys ugu qabanayo ma ahan inuu adhahay maxuu soo noqonaa sababta uu jeclaa waxay tahay uga jeclaa dadka kale yani waxa dareemaya inuu yahay qof wali nolosha hami u haayo oo rabo inuu xanuunkan ka baxo xanuun soo taabtay dhib soo taabtay marka dawo yar oo la siiyay oo xogaa qofkii firii ku noqday inuu la baxo maaha dawo hadaa aragtid xanuun baabiye waxay dhaanta male waqti yar una ka haynaysa xanuunkii dhibti ku haysay marka kalena yani oo kugu soo fasaxay dhibka dib u dareemay hadana xanuunadan psychology-ga ama cilmi nafsiga ama aqliyan mar walba waxa waaye wax la socdo hadba noloshaada qaabkay u dhaceyso yani nolosha ku dhaxnooshahay qaabkay u dhaceyso yani dhinac walba fiiri waxa laga yaabaa inaad shaqada ku jirtid inay يعني يرى أدك تهاي وحلا يا بدور شقينا إسكويسد شقدانا كصوب حدي تنا أدي حافظي أولا بتي المسؤولية بدنا كسارن سكيرت بربله ما إسكجرو يعني وحيابها دان إنا حمشيت يعني جر أهان كتابة نس لكن نفس أهان أم معنوي أهان وكتابة نسا مركا ما أهان وح مرك أنت إسكبوك صوتو أما وحيابها قار كهرتد وكاجوك سنكرايو يعني هذا حنون نفسي أركتي مرة والبحوبة هنيهاي نولش قابك وأركيسد إنا بدشت وحياة وبدن نولش هذا كسب سنة إنا بدشت قيمها فرحة إنا أوقاتد ذكري ودانك إلهي يعني كسي أسمين جرت محاكو دري كرا أضو إسكت ترب هذينين أو آدم كوالنين لكن محاكو دري كرا محاكر أقاذ كرا يعني ما دام horumarka noloshan kala maalinba kis lagu daro iyada naftirkeeda dikriga iyo tasbiixda maalinba kis ina ku dartid adoo iska badineen oo xoog yani aadan ku tarax tageenin maalinba kis maxaa ku dari karaa ardayda naftirkooda waxa laga yaabaa in hal jaamacad iska dhaafay laba jaamacadood saddex jaamacadood oo isku dhiganayaan iyada naftirkeeda dhaawacyada ku imaanaya kamid tahay yani marmar waxa ka harayo motivationki ama yani wixii aad rabtay inaad gaartid waxa laga yaabaa wixii adoo wadid inaad ka yar caajistid oo dib uga noqotid waxa laga yaabaa inta adigoo socotid aad ku dhaxdaashid waxa laga yaabaa inaad noqotid qof niyad jabay oo wixii oraba ka niyad jabay marka kulli is xasuusinayga ahayd wax baaxadooda inta ka sheegi kara ma aha waxa ku sababayo waxa ogaataa nolosha inay tahay ma aha wax mar iyo laba marka nin inta ka qaata ka bixi kartid laakiin wax laga bixi karo waa dadaalo badan iyo waxyaabo badan la ka xanuunada nafsiga yaa la yareysan waa maasantiin waxuna iga fahamteen rajayna assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh